maleeshiyada al-shabaab ayaa iskaga baxay deegaanka muquri ee gobolkan hiiraan kadib markii ay sii xoogeysteen dagaalada iyo weliba howlgallada lagula jiro argagixisada al-shabaab ee gobolkan hiiraan oo ay wadaan ciidamada dowladda iyo weliba dadka deegaanka. waxaa halkaasi la filayaa in saacadaha soo socda ay gaaraan ciidamada dowladda, waxaana ay ahayd xarumihii ugu muhiimsanaa oo ay markaasi al-shabaab ee gobolkan hiiraan ka joogeen. maleeshiyada al-shabaab ayaa hore ugu sugnaa deegaanada kale ah beergadi, teedaan, wabxa, afaridood, booco, garasyaani iyo sooman, abuurey, baardheere, tirashanta, baarre iyo weliba deegaano kale. deegaanka muquri ee gobolkan hiiraan ayaa waxa uu noqonayaa deegaankii ugu dambeeyey ee ka baxa gacanta argagixisada bariga gobolkan hiiraan, waxaana taasi ka dhigan tahay in deegaanada gobolkan hiiraan oo in muddo ah laysku marin ay furan yihiin. midda ugu muhiimsan ayaa waxa ay tahay in dib loo furay waddada laamiga isku xirta koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo gaadiidkii weliba dadweynuhu ay isticmaalayaan, iyadoo dhammaan waddooyinkii miinooyinka ay ku aaseen gobolkan hiiraan laga saaray. degmada Maxaas iyo weliba deegaano hoos yimaado oo in muddo ah wax isgaarsiin ah ka jirin ayaa hadda dib u helay, waxaana ka hadlay guddoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane. aad u mahadsan tahay. isgaarsiintii dhammaan degmada Maxaas dib ugu soo laabatay shalay maray 8 mise 2 saac. mahad ilaahay waayin nimankii nabadiidka dadka dhibaateynayay waa laga dulqaaday, marka dhammaan degmada isgaarsiinta dib ugu soo laabatay. dadku danahoodii ku kala qabsanaan, kii ku adeegana iyo kii kala guuniyo mid guud qofku qabsanaaba. marka meelahay ka dadsaneed nimanka nabadiidka sida Soomaaliya kaleeto Bataala kaleeto waa laga eriyey la socotidba. xarumoona dib loo shiday. dhibaato badan waa gaarsiiyeen oo qaybna waa qarxiyeen oo waxaan ku sheegay qaybadaas waa jiraan oo hadda sida goobo kale waa dansiyiin, laakiin inta badan waa shidayiin xarumuhu dhammaan degmada Maxaas. guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo weliba saraakiisha ciidamada qalabka sida ku sugan gobolkan hiiraan ayaa hore u sheegay in howlgallada ay socon doonaan ilaa gobolka laga saarayo argagixisada al-shabaab. qoys fara badan oo ay ka soo barakiciyeen deegaanadii ay ku sugnaayeen ayaa ku sugan magaalada Beledweyne xarunta gobolka hiiraan, kuwaasoo iyaguna dib ugu laaban doono deegaanadii markii hore ka yimid. Ibraahim Maxamed Geedi, warbaahinta qaranka, Beledweyne.